الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين برباهينتا halkan ku sugan magaalada Burco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay taariikhdu tahay 5 bisha 12aad 2020ka waxa aan shirkan jiraayid magaalada Burco ugu qabtay isla markaana warbaahinta kala hadli doona xariga iyo xukunka ku dhacay gudoomiyaha guud shirkadda ama muqbahiyaha Astaan Cable xukunkii ugu dambeeyay shalay dhacay waxa uu ahaa in la xukumay oo lagu xukumay 5 sano xariga Astaan oo la xayiray iyo ganax lacageed oo dhan 2 milyan oo shilin Soomaaliland waxaynu ka warqabnaa in Cabdimanaan Yuusuf Maxamed la xiray markii ay bishu ahayd bishii 10aad aan idhaahdee bishii 7aad aan idhaahdee 2020ka ayaa la xiray bishii 11aadna xukunkiisa soo baxay xukunkiisa oo ku soo beegmay xilli ay dadku aad ugu mashquulsan yihiin arrimo badan oo jira oo dadku muxuu ahaayay meel kale lagu mashquuliyay lagana mashquuliyay meel badan ayuu xukunkiisu muxuu ahaayay ku soo beegmaya si duuduubana maxaa way xukunkiisu inuu soo gaaray maxaa 5 sano loogu xiray maxay qodobadu haayeen eedeymaha waa maqalay eedeymihii lagu eedeeyay ma iyagiiba oo cadayma loo helay mise waa wax kale arrimahaas ma cadda waxyaabaha inuu baahanay oo ugu horeeyo waxa weeye aan doonaynay inaynu fahanno waxa weeye xukunkan ku dhacay 5 sano iyo sababta telefishinkii loo xayiray maxay tahay ma aha sax in qof la iska soo eedeeyo suufid loo xukumo iyadoo aan dadka faahfaahin laga siin oo aan isla markaana muxuu ahaay aan cidi hadal soo hadal qaadin oo muxuu ahaay saa lagu dhaafo muruur al-kiram ma aha wax sax waxa weeye waxa saxdu waxay tahay in la ogaado xaqiiqada waxa ay tahay ninkan waa la eedeynayay eedeymihii maxaa sax ka noqday maxaa 5 sano loogu xukumay maxaa ganacsigiisii uu dhaqaalaha badan ku bixiyay maxaa loo xayiray waajib waxay saaran tahay cidda soo qabatay cidda muxuu xukunka soo saartay inay faahfaahin ka siiso taa horta waxaan uga fadhinaa ciddii eedeynaysay ciddii xukunka soo saartay faahfaahin buuxda horta koow aan uga fadhinaa taas waa qodobka labaad maamulka muqbahiyaha Astaan Cable waxa ay noo xaqiijiyeen markii la xidhayay Cabdimanaan Yuusuf Maxamed in laga qabtay mar uu ka soo baxayay hoteelka Damal ee magaalada Burco horaantiisa lagu qabtay ay qabteen niman baaskoolada sita baaskoolada lagu qabtay gaari lagu qafaashay afduub baa halka ka dhacay muddo 9 maalmood lagama warhayn sida ay noo xaqiijiyeen muddo 9 maalmood saldhigyada laga raadinayay booliska laftiisa la raadinayay say noo xaqiijiyeen oo meel kasta muxuu ahay laga raadinayay istabaha iyo meel badan raadin baa la sameeyay 9 maalmood kadib muxuu ahay Cabdimanaan la keenay xarunta baarista dambiyada ee loo yaqaan CID halkaas muxuu ahay uu ka soo bilaabmay marka la arkay Cabdimanaan intii uu xidhnaa ee aan la keenin xarunta CID ama xarunta baarista dambiyada waxay noo xaqiijiyeen maamulka Astaan Cable in niman la shuraako isaga Cabdimanaan shuraaka lah oo uu siiyay ama Astaan Cable kula leh 2% oo uu ka mid yahay nin la yiraahdo Saad Muuse Umar ay ugu tageen meesha uu ku xidhnaa ee aan ahayn meesha boolisku xukumo waxayna u soo bandhigeen inuu ku badbaadayo haddii uu bixiyo saami dhan 50% nasiibay yiraahdeen annaka arrinka furdaaminayna xorriyadaadana wad soo ceshanaysaa 50% nasiibay yiraahdeen uu ka diiday ninka u tagaya siday noo xaqiijiyeen maamulka Astaan Cable waxa weeye Saad Muuse Umar laba nin baa shuraaka la
cabdimanaan laba nin baa shuraaka la ah waa ninka aan sheegay magaciisa iyo nin kale oo la yidhaahdo cadnaan suldaan xasan baa la yidhahdaa cadnaan suldaan xasan labada nin baa shuraaka la laakiin ninka u tegey iyo nin kale oo u tegey oo ugu tegey waa qaybtaas uu 9 maalmood ku xidhnaa ee ka baxsan gacanta booliska ee qolka madow loogu tegey ninka u tegey waa Sacad Muuse ninka magaciisa waxa la yiraahdaa Sacad Muuse Umar muxuu soo bandhigay wuxuu soo bandhigay 50% isii ama nasi aanu ku furdaaminay wuu diiday Cabdimanaan baa leeyahay arrinkaas wuxuu ahaad gudub in dad aan awood dawladeed haysan oo aan xil lahayn in ay qof maxbuusa oo xitaa xabsigaas aan la garanin ku yahay intay qol madow ugu tagaan baaskooladana lagu qabto markii la qabanayay in ganacsigiisa la 50% si waa baad arrinkaas wuxuu u baahan yahay baaritaan la furo oo la xaqiijiyo siday wax u dhaceen Cabdimanaan diid booliskii la keen eedayma la soo qor xukunkii aad maqlayseen ku dhac iyadoo xukunkana faahfaahin laga siin maamulka Astaan Cable waxay qabaan oo ay aaminsan yihiin in Cabdimanaan iyo Astaan Cable lagu qaaday dagaal dhaqaale la hungureeyay Astaan Cable hunguri la hungureeyay cidi hungureysay oo cidda hungureysay waa ka soo bandhigayee iyo cid ka dambayn kartaaba dad qarsoon oo daaha dabadiisa ba jira in la hungureeyay ninkaas aan deegaankan Soomaaliland u dhalan ee ganacsatada ah ee yimi halkan yimi xaqna uu lahaa inuu yimaado oo ka ganacsado sababtoo ah dad badan oo reer Soomaaliland waxa weey dhulka Soomaalida way joogaan xor baa inay ganacsigooda ugu yihiin gunnimo ahayd in muxuu ahaa falka noocaasa loola yimaado gunnimo inay nagu tahay dhamaanteed